أنا أبو حمد دواني مينو ما نوقيت مينو أكيد لبدو لدوريو بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا دغيسيال برنامجكeenii dharaarihii tilmaanaa iyo qaybtiisii 3 waana soo diyaarintii baahda mareegta farshaxane isku dubaridkii iyo daadiintii anigoo Cabsalaan Ismaan Marjeex Abu Hurayra dogob hawd ka horayaan inuu duurka kala gubo ka dardaarmayaayo waxaan moosayaa daad tan yartayda afiyo dibindaabyo ku halkuba waxaan uga dan leeyahay in dhaweedayaankiyo shanqadhiye durmaanada waxba iga daalacay dulucdeedu waxay tahay ilaa ma diraacdi 60kii darroortee bixin weyday dooga dadka waa dargeysaan lagu duubsan jirayo kama daalla beente maxaa ii daliil cada inaan dawladnimo helo dadku ay u sameeyeen oo aan dirsoociyo lagu dhaqin dariyo hebel ku darsoo mid kale hoo hadduu dayday bari jiray intuu dawga ku galo tabalaaba goomaha dunyadooda kaga dhacay qalin baa ka daba yimid tan yartiya shaqaalaha daribkooga lagu cuno waxaan uga dan leeyahay dulin baa bulshada galay hilbahooda diirto weligii dagaag bixin dulucdeedu waxay tahay musuqmaasuq daabaan degmadiisa noqono degalkaan ku noolahay ninka duubka loo xidhay markuu daylo loogto dib jirkiya miskiinkana dacar uu qoosha ku darsoo rashiidow daacaaw yahayba cidu doodar maahan ciidayn ku sheegay waxa taa ka sii daran marka dhoolku noo doo darka iyo badayskana dawliskan karaysta barnaamijkeeni 22aad waxaynu dhageystayaal ku soo qaadanay dhalintii 7 ahayd ee dawladii afweyne dilka ku xukuntay iyo 3 mujaahid ee u heeliyay dhalintaasi waxay muujiyeen dareenkooda ku aadanaa dawladda xilkeeda gabtay waxa markaa dhalinta ahayl u geystay 3 mujaahid ee Dhame Cawil Cadami Burhaan معلم باشا موسى محمد oo ku magac dheeraa Baasha Diig iyo macallin Ahmed Maxamed oo isna ku magac dheeraa Ahmed Waraabe saddexdooduba Ilaahay ha u naxariistee saddexdan mujaahid si ay u cabiraan dareenkooga ay ugu hiilinayeen dhalinta dilka lagu xukumay ayay u afduubeen diyaaradii Somali Airlines bishii November 24keedii gugii 1984 hase yeeshee barnaamijkeeni 22aad ayaynu ku qaadaa dhignay dhacdooyinkii ku aadanaa gugii 1954 iyo halgankii ka bilaabmay kuhungowgii soo celinta dhulka Ingiriisku deeqda u siiyay dawladda Itoobiya ee imika loo yaqaano kilka shanaade haddaba barnaamijkeena maantana waxaynu dhageystayaal diiradda ku saaraynaa halgankii suugaaneed iyo xisbiyeed ee loogu gogol xaadhayay xornimadii 26kii Juun 1960 bixinta dhulkaasina waxa la oran karaa waxay noqotay dhimbiishii hurisay dabkii loo shiday xornimadoonka raadintiisa markii lagu guuldaraystay dib u soo celintii deegaanka Soomaaliyeed ee loogu deeqay Itoobiya ayaa waxay taasi keentay guul kale oo aan la filayn waxa Hargeysa yimi bishii May 1955 xogayihii arrimaha gumaysiga ama sida reer Somaliland u yaqaaneen wasiirul mustacmarkiya waxa la oran jiray wasiirul mustacmarkaasi Master Lord Lloyd waxaanu Master Lord ku dhawaaqay inay reer Somaliland helayaan xornimadooda si degdeg ah arrintaasi waxa dabada ka riixayay qaran
qaramada midoobay oo dood ku saabsan waxa laga yeelayo dalalka Afrika ee gacanta gumaysiga ku jira ay ka furantay isla xilliyadaasi. taasi waxay keentay in Afrika oo dhan laga wada dareemo halgankii xornimadoonka iyo isu diyaarintii xilkala wareegidda gumaysigaasi. waxaa Master Lord uu la kulmay kacdoon iyo biyadiid ay soo qabanqaabiyeen kooxdii ka tirsanayd ururkii NUF oo xisbi aan weli isku bedelin. waxaa kaloo kacdoonkaasi kaalmo laxaad leh ka geystay ururkii aqoon-yahanada ee Somali Officials Union. waqtigu boqol doocsana dirsigu kugu beerayaa durduur kugu siinayaa dardaaran adoo qabu dagaal kugu riixayaa dil buu kugu oogayaa marka dildilaad gasho hadana kugu diidayaa duraata sidoo ku yiri intuu ku diro hadana dabaal kugu sheegaya rugaha dunida bulshada indhaha deeya xujaa ducaa laga eegayaa dayma lagu eegayaa dana laga eegayaa u daana cid baa taqaan ka daana cid baa taqaan ka dooro rabba yaqaan ka dooro adaa yaqaan dildila rogan baa tihiin sida ay isu doorisanaya isu doorataan markay dahatay dhul tahay markay dahatay dhir tahay markay duhur tiigsi tahay ayay dalandool cad tahay duf bay ku sarbeeban tahay dabay ku aloolan tahay lafiba diirkeed qodnayd. waxaa cariga Somaliland xilligan gudoomiye u ahaa Theodore Baik oo ay reer Somaliland u soo gaabin jireen Tia Baik. sidoo kale gudoomiye Tia Baik ayay dadka reer Somaliland u yaqaaneen laba sacle. gudoomiyahani wuxuu si amba qaaday hawlihii dhinaca xeer dejinta iyo maamul wareejinta ee uu hawsheeda faraha la galay gudoomiye Charles oo ay dadka reer Somaliland u yaqaaneen kama isagoo xilka gudoomiye ee Somaliland hayay muddadii u dhaxaysay Maarso 1948 ilaa Febraayo 1954. waxaana qorshaha ugu horeeyay ee xerdajinta lahaa gudoomiye Charles Fisher. xilka gudoomiye ee Somaliland hayay muddadii u dhaxaysay 29 Maarso 1941 ilaa 3 Maarso 1948. sidoo kale ayaa Tia Baik xilka gudoomiye ee Somaliland hayay muddadii u dhaxaysay Febraayo 1954 ilaa Juun 1959. waxaana xilka gudoomiye ugu dambeeyay noqdayna gudoomiyihii ugu dambeeyay Master Douglas Hall oo xilka gudoomiye ee Somaliland hayay muddadii u dhaxaysay 12 Luulyo 1959 ilaa 26 Juun 1960. gudoomiyahan baana ahaa gudoomiyihii ay bulshada reer Somaliland kala wareegeen maamulka maalintii calanka la saaray. inkastoo uu calanka wareejiyay xogayihii guud ee B. Carroll oo dadka reer Somaliland aanay isku fiicnayn. si aan haddaba u ogaano hab maamulkii iyo aragtidooda kala duwan ee saddexdan gudoomiye ee Charles Fisher, Charles waa kama iyo Theodore Baik waa laba sacle ayaanu wax ka weydiinay Cabdiraxmaan Caabid Faarax oo haatan ku sugan cariga Mareykanka lana soo shaqeeyay saddexdaasi gudoomiyaba. Gerald Fisher was the governor of the British. Okay. And he was a civil servant. Fisher was answerable to the British Colonial Office. Being a British citizen, and I knew Fisher, but he was quite a different character. And quite a different job of work he had than Pike. But the two were appointed by the same people, the British Colonial Office. General Rees didn't have a good reputation amongst the Somalis when he was governor in East Africa. He used to be governor in East Africa. Then he came to Somaliland. And he was a tough man. Fisher came from India, and he came with new ideas. So I would say that they came from different backgrounds. One came from India, where independence was being granted. And one came from East Africa, where the work was negative, and so Fisher
was the beginning was the beginning of liberty for the Somalis. G.T. Fisher was a different character. He had to be. He didn't have the same experience and the same responsibilities as Fisher. See, that was the time in 1960. The British Prime Minister said that 1960 is the time for change. We have to give the colonies independence. So Pike came in 1955 in order to get the Somalis ready for independence, because we never to govern ourselves. The British did everything. Everything is determined by the period. When Rees came to Somaliland, that was the opening. That was the beginning of giving responsibility to the Somalis to govern themselves. When Pike came, it was to prepare the Somalis for independence. Well, you see, the Somalis were about I think it was 6 districts. Every district there was Zela and Borama together. 1, there was Hargeisa. 2, Berbera. 3, Boro 4, Lasanad 5, and Edigawa 6. The country was divided into 6 districts, and every district had a district commissioner who could do things, and this district commissioner had to report to the governor, but never to report to the Somalis. The Somalis were told to do what to do, and the governor was telling the district commissioners how they should do it. si kooban waxay ku noqonaysaa Fisher wuxuu ahaa shaqaale aan caadi ahayn soona maamulayay waddanka Indiya oo xornimo qaatay halka Rees waa kame laga soo bedelay bariga Afrika oo weli ku hoos jiray gacantii gumaysiga aanay ku adkeyd kaalmayntooda dad doonaya inay ismaamulaan halka uu laba sacle u yimi inuu diyaariyo dadkii xilka kala wareegi lahaa. saddexda gudoomiye waxaa maamulkooga iyo aragtidooda howlfulineed hogaaminayay meelaha ay ka kala yimaadeen iyo ujeedada loo soo igmaday. saddexduna waxay ku soo beegmeen xilli baraaruga xornimo-doonku kobcayay dawladdii Ingiriis ha u kala nuglaatee. saasi darteed ayaa Fisher iyo Rees loogu tiriyaa inay buddig u ahaayeen u diyaarinta reer Somaliland hanashada xilka qaran ee dalkooga Somaliland. waxaa bilaabmay muddadii ay labadan gudoomiye joogeen siina kordhay marba marka ka dambaysay dadka reer Somaliland ee xilalka hananayay. sidoo kale waxaa bilaabmay in la kobciyo aqoonta maamul ee bulshada reer Somaliland. waxaa muddooyinkan dhexdeeda jaamacadaha dalka Ingiriiska loo diray dad tiro ah si ay u soo bartaan maaraynta iyo maamulka. saasi darteed ayuu gudoomiye Tiabay ku soo beegmay xilli ay kooxihii la diray qaarkood soo dhamaystireen aqoontii loo diray. waxaanu ku guuleystay fulinta xil wareejinta dadkii aqoon-yahanada ahaa ee soo noqday. waxaa la magacaabay dhowr gudoomiye ku-xigeen waxaana ka mid ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo noqday gudoomiye ku-xigeenka Boorama assistant DC, Cabdiraxmaan Caabi Faarax oo isla noqday gudoomiye ku-xigeenka warfaafinta, iyo Iimaan Maxamed oo noqday gudoomiye ku-xigeenka magaalada Berbera, Antonio James oo isla noqday gudoomiye ku-xigeenka magaalada Cerigabo. hase yeeshee weydiimaha meesha imanaya waxa weeye maxaa gudoomiye loogu magacaabi waayay, miyaanay u qalmin hanashada xilka gudoomiye. si aynu haddaba warcelinta weydiimahaasi uga bogono ayaanu codbaahiyaha la beegsanay mudane Cabdiraxmaan Caabi Faarax si uu inoogu balballaariyo arrintaasina waxa uu yidhi. First of all, it was the practice that no Englishman should work under a Somali. So I became an assistant district commissioner, but I never became a district commissioner until the last few months of colonialism in 1960. I think from 1959 to 1960,
That was when there were promotions. But the British made quite clear that no European would come under a Somali. That was the unspoken rule. No European, no matter whether he was a technician or not, would come under a Somali. And all Somali would be assistants, the senior Somali. When I returned from Assistant District Commissioner in 1955. si kooban waxay ku noqonaysaa waxay ahayd habdhaqanka reer Yurub inaanay ogolaan in nin reer Yurub ahi uu hoos tago nin diir madow aqoonta ama kartida uu doono ha lahaadee ilaa maanta oo lagu jiro qarnigii 21aad habdhaqankaasi waad arkaysaa waxaase suurtagelinaya dadka reer Afrika oo markuu irbada ku mudo qof reer Yurub ahi u arkaya inay daweysay ta qofka diirka madowna irbadiisu tahay dani ku badaya waxa iyaguna sidaas leeg ah jaamacadaha xafiisyada shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo wixii la midka xilligaasi dadka reer Somaliland waxa tiro iyo tayo ku lahaa xisbigii SNL inkastoo oo dhagaha maqalkooga aanu ka maqnayn xisbigii SYL oo xarun ku lahaa xaafadda New Hargeysa dad tira ahaan loo tilmaamaana aanay ka dhex muuqan hase yeeshee ururkii ama jamciyaddii NUF ta waxay suurtagelisay in bulshadii kala duwaneed ee reer Somaliland helaan gogol siyaasadeed oo loo midaysan yahay waxa sidoo kale aad u soo dhaweeyay gogoshaasi ururadii bulshada hoggaanka u hayay sida Somali Officials Union oo loo ogolayn inay siyaasadda ka qayb galaan inkastoo ururkani NUF tu xilligaasi ahayn xisbi siyaasadeed haddana codkooda iyo aragtidooda way soo bandhigi karayeen siibatii ku saabsanayd hawd and reserve area oo lagu gabanayay markii wafdigii reer Somaliland ee ku bohoobay jamciyadda NUF ama nafta sida dadka reer Somaliland u yaqaaneen ay Ingiriiska ka soo noqdeen ayaa lagu tashaday in qof waliba xisbigiisii uu ku noqdo dantu waxay u baahnayd intaan doolka geediga la dareerin gumarada cid horseedka loo dayo dantu waxay u baahnayd baadida nin daydaya ka difirana soo hela isku daadaheeyaha dantu waxay u baahnayd ducaqaba la mahadshiyo oday beela daaja ah iyo hanad madaala ah dantu waxay u baahnayd door iyo waxgarad haga hayinbiya madaadsha ah marna geesi daafaca dantu waxay u baahnayd nabarada damqanaya doog iyo larkeene midda weeye boogaha dakharada saboldaya dantu waxay u baahnayd dihnigii galaydhkiyo dareen galow mid yeesho daakiraada sarakaca gugi 1955 ayuu maamulkii Tiyabaik soo bandhigay qorshe ku salaysan 5 sanadood oo ay ku leeyeen mashaariic la rabo in muddadaasi la fuliyo waxa sidoo kale qorshahaasi kamid ahaa in la sii wado dadka reer Somaliland ee Ingiriiska aqoonta maamul iyo maareynta loogu diraayo waxa markaa soo dhaweeyay aadna u taageeray qorshahaasi koox wali sidata magaca NUF ta iyo shaqaalihii aqoon-yahanada ahaa ee ka tirsanaa ururkii Somali Officials Union labadan kooxood ayaa aad ugu riyaaqay qorshahan waxaanay aqbaleen qorshihii horumarineed iyo maamul ee ku dhisnaa 5 sano waxaanu xilliga Michael Maryama warqadu u qoray gudoomiye xilligaasi uu ku sheegay sidan maamulka NUF uu ku qanacsan yahay soo dhaweynaya qorshahan 5 sanadeedka ah inkastoo ay ka biyadiidayaan loodin kasta oo ku timaada qorshaha rabaana in qorshaha la dardargeliyo qorshahan waxa ku kacay kuna gacan sayday xisbigii SNL cambaarayn xoogana u soo jiiday ururkaasi NUF ta kuna tilmaamay gaalaw adeeg saasi darteed ayaa ururka NUF lagu laray magaca gaala jacayl markii dambe ay noqdeen xisbi halka dadkii loo galiyay xisbiga SNL inuu yahay gaala diid hase yeeshee labada aragtiyood waxay ku kala duwanaayeen sidii Ingiriisku horumarka iyo tababarka dawladeed ugu fidin lahaa muddada ka hadhay xorriyadda ay neecawdeedii bulshada dareemeen dibta iyo xurgufta hogaankii xilligaasi waxay ragaadiyeen horumar badan oo ay dawladda Ingiriisku sameyn kari lahayd iyo dadajin maamul hoosaad ku beegnaan lahayd 1956 dawladda Ingiriis waxay soo jeedisay in 1956 dalka Somaliland loo sameeyo maamul hoosaad ay hogaankiisa hayn lahayd bulshada reer Somaliland arrintaasina waa laga biyadiiday si loo garto arrintaasi waxa si fiican loo dheehan karaa xisbiyada imika ka jira wadanka Somaliland ee kulmiye wadani iyo uceede
saddexdan xisbi waxay ka midaysan yihiin uma wada howlgalaan iskumana marti qaadaan balse mid waliba wuxuu ku dadaalaa wuxuu rabo inuu ku galo darajada koowaad sidoo kale waxay isku diidan yihiin ayaanay u howlgalin inay si wanaagsan uga wada hadlaan dalka iyo dalkana dhib badan ayaa ka soo gaadha hirdankooda siyaasadeed waxaa laga dheehan karaa dhibta iyo hagardaamada ay xisbiyada maanta ee kulmiye u ciidiya wadani ku hayaan aqoonsiga Soomaaliland oo moodo inay uga gul badan tahay aflagaadaynta jallaafaynta iyo kaarka gubista oo xisbiba ku wada xisbiga kale waxaase mudnaan lahayd in la heli lahaa saddexda xisbi oo danaha guud ee qaranka meel uga soo wada jeeda kuna cibra qaata taariikhdii hogaamiyaashii ee 60kii ka hor waxaa halka maanta aan joogno ina dhigay waa gafkii ay galeen hogaamiyaashii 60kii miyaan haddaba u kordho mooye ummadani garaadba u kordhayn xisbiyadani ay qaltid waa wasku wax jeediyay gumbaha laga unkaa duqba geel loo tubaa gawba ka qadurbaan waxa geel la kacaa dilka tahay la daa gafkana bashar baad u tee hadaad ka garowda qalad gobbay caadadeeda tahay waxaa godobtiisu hadhin garaad leeduhu og yahay ninkaaga masuugay gole waxaa gabay lagu saxdaa caluuftu geftaa dalqada markuu milil guud ka dhayo golxoo dhammi maaha dhalan marbay gad kaleeta tahay dib loo gergeliina iyo gangada waxa keenta been maxaad godladaa araar shabeelkaan gurbood ku dhalay kuwii waxa gooyay aar sawkii alla gowrac yidhi maye waxa laysan karo hadaa guga ku kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag inay waxmada tidgeed golihii la tashiga ee uu hana qaaday gudoomiye Charles Fisher ayaa hirgalay xilligii gudoomiye Charles waa kama golahani wada tashigu wuxuu suurto geliyay in ay timaado dooda ah sida loo samaynayo golaha xeerdajinta oo reer Soomaaliland u yaqaaneen majlisu tashriici oo ah af Carabi Ingiriisna ku noqonaysa Legislative Council doodu waxay salka ku haysay miyaa la doortaa mise waa la soo magacaabaa golahani sidoo kale waxaa dooda ku dhex jiray in xubnaha goluhu u badnaanayo xubnihii gumaysiga ee maamulka hayay oo ay ku doodayeen agaasimiyaashii xilligaasi ee reer Yurub iyo halka reer Soomaalilandna ku doodayeen in xubnaha ay ku yeelanayaan golahaasi la tiro noqdo ama ku dhawaado kuwa codaynaya wuxuu gudoomiye tiyaatar Bayg waa laba sacle ee u sheegay bulshadii in laga gudbay golihii wada tashiga loona gudbayo samaynta golaha xeerdajinta majlisu tashriici saasidartada ayuu hirgeliyay dhisida majliskii tashriiciga golaha xeerdajinta ahaa ee ugu horeeyay oo hawshiisii bilaabay 22kii bishii May 1957 hase yeeshee golahani waxaa la sameeyay gugii 1955 inkastoo hirgelintiisu ay dib u dhacday waxaana dib u dhaca loo tiriyaa Ingiriiska oo u muuqday meel aan rabay roobigu eriyay hogaankii bulshada reer Soomaaliland oo isu muuqday una helanaa isirdankooda sida imikaba ah dhacdo joogto ah waxaa majliskaasi ama golahaasi xeerdajinta gudoomiye u ahaa isla gudoomiye tiyaatar Bayg waxaanu ku dhawaaqay magacda xubnaha golaha xeerdajinta oo uu ku daray xubno ka soo jeeda dalka Soomaaliland halka markii hore ay dhammaantood ahaan jireen xubno ka soo jeeda boqortooyada Ingiriiska golahaasi xeerdajinta waxaa waqtiyadan aynu joogno lagu magacaabaa golaha wakiilada waa baarlamaanka waxay xubnahaasi ka koobnaayeen 15 xubnood waxaanu gudoomiye tiyaatar Bayg waa laba sacle u qaybiyay 15kaasi xubnood ee majliskani 3 qaybood oo kala ah sidan
kow saddex xubnood oo ex officials ama xubno aan cod lahayn oo ahaa xogayaha guud the chief secretary J.R. Stebbing, xeerlaalyaha guud attorney general F.W. Roberts una dhashay waddanka New Zealand, iyo xogayaha maaliyadda financial secretary G.C. Lawrence. laba shan xubnood oo saraakiil ahaa waana xubnaha codayn karayay oo ahaa agaasimayaasha laamaha maamulka kalena ahaa sidan B. Carroll oo kadib laga dalacsiyey laakiin markan madax ka ahaa arrimaha Soomaalida Commissioner for Somali Affairs, marna madax u noqday xafiiska shaqaalaynta. agaasimaha adeegga caafimaadka Director of Medical Services Dr. W.T. Thomas, agaasimaha khayraadka dabiiciga Director of Natural Resources J.M. Watson, agaasimaha hawlaha guud Director of Public Works E.B. Wilder, iyo agaasimaha tacliinta Director of Education B.H.C. Barham, markii horena ahaa maamulaha Sheekh islamarkaana dhigi jiray maadada xisaabta. saddex lix xubnood oo aan sarkaal ahayn oo magacaabay gudoomiye Baayke oo ka mid ahaayeen waana xubnihii ugu horeeyay ee ka soo jeeday reer Somaliland laguna daro golaha xeerdejinta lagana soo xulay lixdii degmo ee ay xilliga Somaliland ka koobnayd ee Laascaanood, Ceergabo, Burco, Berbera, Hargeysa iyo Boorama. Cabdulla Xaaji Faarax, Axmed Xaaji Cabdillaahi oo ku magac dheer Xashiish, Jaamac Maxamed, Jirde Xuseen, Michael Maryama iyo Xaaji Yuusuf Imaan. marxuum cigaal ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye ayaa isaga oo ka duulaya qorshahaasi 1957 oo uu goobjoog u ahaa Barbarana ka dhigay gobol Gabileyna u diiday inay gobol noqoto markii labada codsi ee labada gobol loo geeyay. 14kaasi waxaa 15 ku ahaa gudoomiye Tiabaayke. arrintan dadka badani way soo dhaweeyeen in bulshadii reer Soomaaliland ee golaha wada tashiga ku jiray loo ogolaaday in maantana ay xubno ka noqdaan golaha xeerdejinta. waxaase ka biyadiiday xisbiga SNL sheegayna inay qaadiceen jiritaanka golahaasi. dawladda Ingiriis way ka go'nayd inay xilwareejin sameeyaan oo golahani uu hirgalo, hase yeeshee maan rag waa mudacya afkooda bulshada qaar waxay ka biyadiideen xubnaha la magacaabay oo aan u muuqan inay goosan karaan xaqooda una nugla Ingiriiska iyo danahooga. waana laba aragti oo kala duwan. si kastaba ha ahaatee golahani uu hirgalay si degdeg ahna uu u howlgalay. markaan calankaaga guud ka sugnee kunidaysu taagneen kunibaa taladii garanoo kuu shiilantinee dadyow gabigiin gacmaha isabsadaan dadyow gabigiin gacmaha isabsadaan alloogu gargaar kayga nabato dhinaca waxbarashada isla gugan 1955 kobaca dugsiyada waxbarashada ayaa kordhay. bulshada ayaa dareen ka duwan kii didmada ku soo dhaweysay waxbarashada fargaaleedka ku xardhan waa sidii uu ula jaan qaadayay garaadku xilligaasi. waxaa xusid mudan in odagii reer Burco ee budka la dhacay mudane Yuusuf Ismaaciil Samatar Gaandi ilaahay u naxariistay caruurta u fargaaleedka baraya darteed inuu markani isla budkii ula dhacay muxuu inankayga dugsigu uga buuxsamay eed meel ugu heli weyday. waxaa kordhay garashada dadweynaha ee dhinaca waxbarashada ku dhisan farta Laatiinka. ardaydii way korodhay, dugsiyadiina baahida darteed waa ay kordheen. wadiga dugsiyada waxaana haywanada macalinka waagii baryaba ubax laga waraabsho waagii baryaba ubax laga waraabsho waxa ku warwarayna wadankiina waxu barta
xilliyadii kuntameeyadii waxaa aad u kordhay dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe ee ka dhismayay dalka Somaliland waxaa jiray dugsiyo hoose oo ka dhisna kuna filiqsana dhammaan maamulada 6 degmo ee dalka xilligaasi lagu baadisoocayay sidoo kale xilligan waxaa si fiican u socday dugsiga sare ee Camuud waxaana aad loo waday qorshaha ah dugsiyada farsamada ee Hargeysa in la hirgeliyo waxaa sidoo kale aasaasmay dugsiyada lagu tababaro macallimiinta si loo yareeyo macallimiinta dibadaha lagu soo tababarayo waxaa sidoo kale aad loo fahmay oo bulshadii reer Somaliland soo dhaweysay in haweenka loo ogolaado waxbarashada waxaa arintan kaalin weyn ka qaatay kadib markii 24kii haween ee ugu horeeyay dugsigii Burco ee 1953 ay muujiyeen xilkasnimo weyn iyo dadaal badan waa kan Xaaji Cismaan Axmed oo arintaasi waxbarashada waxay noga taataabtaa iskuul waxaa jiray dugsiyo fara badan oo degmo walba ama district walba waxaa ka furnaa elementaryga 30 arday baa ku jira sanadkiiba imtixaan laga qaadaa marka la isu geeyo 210ka 30ka u sareeya ayaa intermediate ama dugsi dhexe oo sheekha la isugu geyn jiray iyaga markii dambe intermediate markay sii bateenna iyana inta la isku daro markii la furay secondaryga sheekh ayaa 30ka u roon lagu diri jiray dugsiga sare marka imtixaanka laga qaado sanadkii dugsiga sare afarta u sareeya xantuub meel lahdo Suudaana oo dugsi sare ayaa loo diri jiray inta kalena meel baktarida lahdo macallimiintan doonayeen dhigta u dhigaan oo macallimiinta lagu tababaro Suudaana loo diri jiray macallimiintii inoo tiri ama ragii badanaaba xukuma noole halkaas wax lagu soo baray kuntanadiina gugan 1955 waxaa soo dhamaystirmay baaristii loogu jiray sidii loo qori lahaa af Soomaaliga iyo xuruufta la adeegsan lahaa waxaa la soo bandhigay habab kala duwan oo loo qori karo af Soomaaliga hase yeeshee gudida loo xil saaray waxay isku raaceen in afka Laatiinka lagu qoro iyadoo oo loo tixgelinayo baahida dhaqaale qalabka wax lagu qori karo siday dad badan oo shisheeye ah ugu fududaan karto inay bartaan af Soomaaliga iyo wixii la mid ah waxaa gudidaasi ka mid ahaa Professor Guush oo isaga laftigiisu baaristaasi ka qayb qaatay door lixaad lena ku lahaa waa kan Professor George Kapchat oo arintaasi aan wax ka weydiinay George Kapchat wuxuu u dhashay dalka Ruushka waana dadka shisheeyaha ah ee af Soomaaliga ku hadla kuwa ugu dadaalka badanna kamid ah buugaag badan oo af Soomaali ahna qoray Andrzejewski ama Guush waxa loo hilsaaray inuu xurufta ay inuu xuruf u yeelo u sameeyo af Soomaaliga galaal mooyaane wuxuu la shaqeeyay ummo fara badan aqoon-yahano fara badan oo Soomaaliyeed ee waqtigaas baarayay af Soomaaliga marka guddiga af Soomaaliga ayuu xubin ka noqday wuxuu soo jeediyay in af Soomaaliga lagu qoro xurufta Laatiinka wuxuuna la soo baxay xuruf gaara oo ku habboon af Soomaaliga laakiin waqtigaasi guddigii talinayay guddigii Ingiriiska ee xukumayay Somaliland waa u diiday waayo wuxuu ka baqayay in hirgelinta xurufta af Soomaaliga ee ku salaysan afka xurufta Laatiinka in laga cadal xumaan doono in laga ashtakoon doono waxay ka baqayeen in taasi ay kaan ama kicitaan ay muxuu ahaa dalin doonto markaas waa la joojiyay bishii September 1956 ayaa waxa waxbarashada maamulka iyo maareynta loo diray labada mudane ee kala ah Axmed Maxamed Qaybe Ilaahay u naxariiste iyo Xaaji Cismaan Axmed Xasan oo ku magac dheer Cismaan Indhoole waxaanay waxbarashadoodii ka galeen magaalada Edinburgh ee caasimadda u ah Cariga Scotland
guugan 1956 waxay dawladda Ingiriis soo bandhigtay inay doonayso in Somaliland u samayso dawlad hoosaade tani waxay keeni lahayd xildajin iyo xilwareejin hor leh hase yeeshee dadka reer Somaliland umay bislayn qodobkaasi inkastoo aqoon ahaan iyo karti ahaanba ay hanan kari lahaayeen xilalkaasi xisbiga kaliya ee xilligaasi jiray oo si fiican u dhisnayn iyo isirdi siyaasadeed ama loolan hoosaad ka dhaxeeyay hormoodkii bulshada xilligaasi ayaa hor istaagay arrintaasi loo soo bandhigay saasi darteed waxaa guugan nidibada loo taagay gafaf taariikheed oo bulshada reer Somaliland ay gashay ilaa imikana gafafkaasi si xidooda la wado loona heelan yahay gafkani wuxuu ku biiray gafkii u hanqaltaaga adeegsiga calanka buluuga ah ee reer Soomaaliya 1954 ayaa Talyaaniga oo qaramada midoobay uga wakiil ahaa dalka Soomaaliya waa Italian Soomaaliya ee u soo bandhigay reer Soomaaliya inay calan soo hindisaan dhowr qof oo reer Soomaaliya ah ayaa soo bandhigay calamo kala duwan hase yeeshee Maxamed Cawaale Liibaan ayaa soo bandhigay calanka buluuga ah ee xidigta Shingeeska ah ee ay dhexdiisa ku xardhan tahay waa kan Dr. Cabdiqaadir Boolay oo arintaasi aan wax ka weydiinay isla markaana inoo sii faahfaahinaya hornimada markii la galay dalkii waxa lagu soo celiyay Talyaaniga marka waxaa laga dhigay wasaayad wax la yiraahdo oo in 10 sano dawladnimo inuu gaarsiiyo markaas waaye marka la halganka la galay calan in la yeesho maadaama 4 sano ka soo wareegtay 1950 ilaa 54 waxaa Talyaaniga uu sameeyay jamciyad meesha maxal waxa lagu yiraahdo Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa tashriici Consiglio Territoriale al origine Consiglio Territoriale markii la oran jiray la abuuray marka soo qayb galeen dadkii mas'uuliyiinta ahaa SYL baa ka soo qayb gashay qola kaleeto oo African Union qola badan baa ka soo gashay marka SYL iyo nimankan shaqaalaha wakiila ka socda ka soo qayb galay taasa la abuuray maalintii markii waxa la yiri wal Soomaaliya calan haloo raadiyo marka golaha tashriiciga uu sameeyay yaa kamid ahaa marka Soomaaliya waxa kamid ahaa Aadan Cabdullaah kamid ahaa waxa kamid ahaa Maxamed Cawaale Liibaan dad badan baa kamid ah Soomaalida meesha joogta waxa kamid ah Cabdiraxmaan Ciise nin la yiraahdo oo suldaanka Biimaal kamid ahaa marka qolayaan ahaayeen waxa kamid ahaa qola community Arab community waa badnaayeen shaqaalahana wakiila ka socday markii dhowr shir la qabtay marka waxa la go'aansan wali warnimayahow Soomaaliya waxaan rabnaa inaan calan u sameeyno nin walba calan ha soo fikiro ha keeno markii laga hadlanka nin raggi kamid ah shaqaalaha wakiilka ah Maxamed Cawaale Liibaan nin la yiraahdo yaa wuxuu soo diyaariyay calan qolo walba waxay soo darasay laakiin ninkan calan kale soo diyaariyay calanka wuxuu ku saleeyay calanka United Nations oo kale wuxuu ku saleeyay xidig oo 5 qayb leh 5 qayb macnaheedu wuxuu la jeeday 5 Soomaali markii meesha la keenay oo shirki la keenay nin walba wuxuu la soo laakiin karaal markii kala soo dhigay dadkii meesha joogay dhan guddigii dhan xubnihii guddigoo dhan wixii war Soomaali Allah ila maanta calan loo helay marka calankii waa soo bandhigay dadkii waa loo sheegay marka sidaas ayaa raacay in laga dhigo calanka buluga oo 5 xidigta dhexal calankaasi ayaa magaalada Burco laga taagay si taageero loogu muujiyo isla gugaasi 1955 waxaase guul la taaban karo mudan in calankaasi aad ay bulshada reer Somaliland uga xumaadeen saaristiisa muddo gaaban gudaheedna lagu jeexjeexay calankaasi iyadoo oo la muujinayo inayna bulshada reer Somaliland shaqo ku lahayn calankaasi buluuga waa kan mudane Xaaji Cismaan Axmed oo arintaasina inooga warrama raxiim 52 ayaa SNL haddana dib looga soo bilaabay Burco waa halkii naadiga ku dhiisay 54 waxaan ka shaqeynayay Burco halka SNL dhabarkeeda ayay ku lahaayeen SYL xafiis calanka Soomaaliya u taagan bay maalinta damcay inay ka taagaan waa loo diiday waa ka markii dambe 60kii aynu la oradnay
ayaan darase waxay ka dhacday in calankaasi ay diideen ay heesii ugu horreysay iyagu ay u sameeyeen waa reer Somaliland sidoo kalena ay 26 Juun 1960 beerta xorriyadda ee Hargeysa ay ka saareen halkay ka ahayd inay calan ay iyagu waa bulshada reer Somaliland leeyihiin saartaan una dabaaldegaan waa gafafka bulshada reer Somaliland gashay ee sixistooda loo hawlgalay harada keliga hadaw uradi mad'e jadidi dahan noqoye waxaana kadib soo guriye celintii maandeeq lagu guuleystay in gefkaasi la soco oo maanta dalka iyo dadka reer Somaliland waxay leeyihiin calan ay iyagu samaysteen aadna ugu qabweeyihiin waa in la isweydiiyaa maxaa la diiday maxaa laga dagaalamay maxaa loo dhintay maxaa dalku u burburay maxaa hanti iyo dadba loo huray marka weydiimaha laga warceliyo ayaa horumar la taaban karo uu iman karaa lagana baxaya habdhaqanka iminka ee ah hebel ku bedel xukuumad ku bedel iyo maamul ku bedel guushu waxay ku jirtaa habdhaqan xun habdhaqan wanaagsan ku bedel maamul xun maamul wanaagsan ku bedel iyo wixii la mid ah haddii kale waxay arrintu iskugu imanaysaa amaba ay iskugu biyo shubanaysaa inkii shalay la amaanayay maanta la caayo ka maanta la amaanayana baritoole caydiisa loo dooya fadhiisto dhinaca fanka iyo kaalintii xornimadoonka xilliyadan waxa aad uga caanaha dalka Somaliland nashiidooyin af Carabiya riwaayadaha af Carabiya iyo wixii la mid ah waxaana sameynta riwaayadahaasi Carabiga kaalin weyn ka qaatay aqoon-yahanadii wasaaradda waxbarashada siba macallimiintii ay kamid ahaayeen Yusuf Xaaji Aadan Qabille Yusuf Ismaaciil Samatar Ganji Umar Caarti Qalibi iyo kuwii la midka ahaa intoodii dhimatayna Ilaahay ha u naxariisto inta noolna Ilaahay ha ugu deeqo caafimaad qab iyo cimri cibaada ku ladhan xilliyadan wadnaha ayaa faraha lagu hayay iyadoo oo laga baqi qabay in afkeenu hooyo lumo oo af Carabigu meel kasta qabsado magaalada Hargeysa xilliga waxa ku yaalay dugsiga Sheekh Bashiir oo loo yaqaanay Fisher School ardaydii xilligaasina waxa kamid ahaa markii dambana noqday macallimiintii wasaaradii waxbarashada ee fanka hirgeliyay mudane Faysal Umar Mushtaaq Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye waana kan isagoo inala wadaagaya waxna inooga taataabanaya nashiidooyinkii xilliyadaasi fanku dawa qariisad waa wax nature loo qofka ku abuuran talenta dabeedna from elementary school markaanu ahayn nashaa'idka carabiga ah markaa Soomaali أنا قرنين تفرح أيام أنا ين مرحوم كده انتاع محمد عبد الله وجس وعن ثلاث الشيخ بشير وفي شكل هنا مركا معلم في عمر عرتي أيام نشاي ونكسنه في عربي إنه اللي يجري تبعنا خليه وبريه ورا هوسة حلقة هوسة هتعرض وكل الأورنجري كل راديو والصوغ اللي قد يسجري أيام نشيدوي كأخري تري وهاي أربعة تريب بكريفون كاوحشيتو في بيبالغ هذا مع إن عندك الجيبان وإن نشيد الأورنج تري كناري غير ساف عربي عاد بقى تري
from there onwards dee qariisad qofka ku abuurana waa iska najiran heesta jacaylkeeda dabeedna from halkaa ka bilow markii aan dee waa maalinkayigu baan u roganay intaan ka dhaafin waqtigaasi Cumar Carte Qalib inuu macallinkeedina xagee joogay Bashiir halkan markaa Sheekh Bashiir leeyahay fiishir iskuul loo jiray iskuul kale ma jirin aduu fiishir Hargeysa ku lahayd anigu Hargeysa u dhashay dubnay fanaan oo ciyaar fanka dadkii oo heesay oo af Soomaaliga ibnadii iyo wixii markaa suumisana ma keenaba ku qaad dadad inta xilliga ما حسوسن كرتا نشيدون وقتكاس هذا يا كنار كنا في شيء يا كنار يا كنار قد غنى في الغفار يا كنار يملأ الدنيا نشيد إن تكون قد بت في الدنيا السعيد هينا والغسيد فتغنى اليوم بالشعر الفريد كلها الدنيا تغني بتمني والمنى هذا اليوم فينا يوم العيد هذه أيام تاريخ الدور من it was 1954 في كتب وهي مركز كده محد سوق بتشين مركز في دحين عمود بان الاثنين عمود مثل باني دبرنا كانت كلام محمد نوغو او كلام محمد اسامه قاسمي باع يرغب ابو سلمى والاسبان وودع افكين ولا حرام ما هي هينو شو هذا هذيك له ودت واحد اسمه هيسلو هتادي اي لو كرو اسكولا يريك يسكول مثلا على هسه بعد هسه هسه قاعدوا عرضي introduction by all يساوي معنى كويس قاعدي to create interest stimuli بقى child stimuli تيجي مثلك مركاو تيجي لو بماي لكن ده هو غير صوتش هو يقول وهو في يلقدري هو كل بيه يتيس كده في كتاب حسوسته مشاريع الصومالي قاعد هايو waxaan qaadi jiray taag waa leelo Soomaaliga مثلا الله يرحم oo isbahaysi jiray Umar Xaafis Ali Xaaji Aadan oo isna macallinkii weynaa ahaa dadkana abayaashii education kala kamid ah marka adigu meesha waa la soo kafay soo waday baashi uu buu jiray inaan hindigii ina beenaan ismaan هستي كبول الصومالية عادية أو إساء عادية محيط ما تشكون كبحنا شنو مستوى هستي قرن قرن هي مصطفى أرور كان سبيل كل هذا بس جلسة هل كانوا هنا يتعلم بالعيرية طبعا هي يعني حسيتنا وقت صاحبك هو كلاس ميتس مصطفى عجنور الله يرحمه 273 وعاشر هاوس بنتو اللي في الناس كلاس واحد هي كمان كتمي حسيت ممكن لأنه ما مستوى هستي كبول سبحان أنسجلو إلا ما يشيلون هسه اللغة دي دونا يودك سواي يا هاي يديرنا يو نفتي دايدا ودي جرتاي أنيغا تغنو نكالي قدراي دوشو هايغا هالا هايغا تدعى هاي ترى يا هناك لقي اسمريني والله fanka waxaa xiliyadan hagayay nashiidooyinka af carabiga ah iyo ruwaayadaha af carabiga waxaase fankaasi af carabiga ku salaysnaa dhinac ordayay dhagaha dadkana aad u soo jiidanayay fanguyaashaasi hana qaaday fankani waxaa bilaabay mudane cabdi deeqsi warfaah oo ku magac dheer ah cabdi sinimo ilaahay ha u naxariiste waxaana fankaasi lagu baadi soocaa abalwo waa kan aqoon-yahan Bashiir Good oo inala wadaaga taariikh gaaban oo ku saabsan cabdi sinimo cabdi deeqsi warfaah ayaa magaciisa loo jiray cabdi sinimo wuxuu dhashay magaranaysa bilowgii 20-nadii ama dhamaadkii magaranaysa intaan 20 bilahaas buu dhashay cabdi wuxuu dhashay tuulo kamid ah tuulooyinka Boorama oo intiisii hore yaraantiisii hore ku barbaaray dabeetana wuxuu abihi wuxuu ahaan jiray baac mushtara oo badana ka baac mushtaray Zeyla marka Zeyla abuu tagay markii dambana wuxuu soo dambeeyay Boorama
wuxuu dibeeto isma ku yar kobcay reer buu aabiye hawada nibba amsar buu ahaa isla magaal buu soo cabdisinimo wuxuu noqday dirawal wuxuu noqday nin oran jiray xaaji xirsi cawaale oo markaasi ahaa nimankii ugu taajirsanaa dhinacaasi waqooyiga ilaa iyo gobolka Ethiopia la yiraahdo kale naga haysto oo wagaasi reserve area inta noqo Soomaalidu lahayd oo wuxuu ninkaasi lahaan jiray kolonyo gawaariya oo magarasa markuu Talyaaniga waddanka soo degay wuxuu siin jiray contractkii askarta Talyaaniga isaga cuntada iyo raashinka iyo saliidda iyo wax walba isaga u keen jiray dagaalkaas uu diray walooha cabdisinimo wixii markaa jiray ay kamid ahayd dhaantadii hirwadii wigladii waxyaabo loo jiray oo markaasi uu dhalinyar ahaa oo aad uga dhargay oo dhageysan jiray hadii jeer dadkii kabacdi u ahaa ay ku mashquulsanaa waxaasi oo ay kamid ahayd markaan soo qaadna jiiftadii markaa jirtay waxa kamid ahaa dhaantadii markaa la tumay eradii kamid ahaa anoo ka qab weyn qoorta soo laliyay war qaroonlaha quusta ma u jaray yaro kooban magaranaysa saasoo kale waa taabo horadii la joogsaday badal markuu jijiga dhaantada ka ciyaaray waa taabo horadii la joogsaday waa taababkii dhaanta loo galay buluug leed wataa la soo riday ninkii badin waayay baaba'ay erayada kooban oo lagu magaranaysa dhaanta ahaan loogu ciyaaray ayaa markaa socday waxa dabadana soo galay meesha oo idin ku jirtay oo Zayda aad looga yaqaanay wax loo oran jiray dunya dawani oo af Carabi markaasi af Carabi markaa dhulka laga hadli jiray ay kamid ahaayeen salib qaadi jiray oo dadkuna ay ku qayli jireen cabdisinimo waxyaabaha markaa maqlay ee ku qayli jiray ay kamid ahayd waxaanay lahaayeen markay qaadayaan kasrad bay sameyn jireen waa course in middle-ka ah oo lagu celceliyo oo markii area soo tiriyo course-kii lagu aroorinayo horskii lagu aroorinayo waa markaa kasrad ay ku celcelin jireen waxa kamid ahaa wixii erayadii markaasi aan ka soo qoray nimankii markaa ku jiray balwada ee hore binti qalat li abuha qum min al-kursi زوجتي تاجر زوجتني تاجر وحرمتني فقير دنيا دواني عديا زماني تاسي مركا كويس جيرين way ku celcelin jireen taas markii la soo dhaafo ay soo socotay dunya dawaani waxa markaa ay noqonaysaa waa sodomaadkii soo markaa waxa jiray dad isku day dunya dawaani af Carabiga ahayd in af Soomaali laga dhigo oo la Soomaaliyeeyo dabeetana cabdisinimo oo waxa soo dhanka dharagsan ayaa isagoo gaarigiisii wata maalmaha kamida gaarigii kaga jabay banka Gariyaad isagoo soo socda dhinacan buu banka Gariyaad kaga jabay cabdisinimo gabadh buu jeclaan jiray leeyahay Khadiija Balwo oo jeclaa dabeetana Facebook meeshii kaga jabay ayaa gaarigii soo dhaaftay midoo boob xidhaa waxa sanaga jabay wixii badal qalabkii ma hayaan markaas wax noo dhiba kale qaad bi qaar u dhiibaan qaar biyeysiya qaar caanaysiya marka midoo boob xun ayay siiyaan sidaa ku fadhiyeen ayaa magaranayeen cabdisinimo ayuu markaasi tan soo qaatay inankii diray iyo kirishboogii la socday ninka kirishboogii la socday dalaga siiyay oo nin weyn oo dhow iyo 60 ayaa dadkan wareysi ku jiray moogtay dalagii siiyay ayaa uu dalagii garaacay iska garaacay ayuu yiri balwoy hoy balwoy يا ذي كجرتا إن دعد أركي مي سلاي إيا بلوي هاي بلوي waxaa xilligan hirgalay oo aad loogu maansoon jiray balwo oo cabdisinimo ilaahay u naxariistay uu lahaa dahfurkeeda qaybdan ayay maaweelada bulshada u buuxisay balwadaasi waxaana balwooyinkaasi ka mid ahaa kuwane cishqigu ma aha cuud la dhaqdee waa cudur ka bilaama curuqyada maankiyo madaxa ikala maqanoo idinna way igu maadaysanaysaan sidii baxarasaaf ku yaalla bustaan ayuunbaad hadba ii bidhaantaa dadkii in la soo jiito oo afkan Carabiga ah ee ummadii afkoodii ku hilmaameen in wax laga qabto ayaa gudboonaatay sidoo kale ayaa fanka ku salaysnaa maansada balwada ay dadku ka soo boodeen iyagoo raacaya macnaha qayaxan ee ereyga balwo saasi darteed ayaa waxaa bilaamay qaab maanseed cusub oo lagu baadi soocay heello
waxaa gugaasi 1955 la aasaasay kooxdii walaalaha Hargeysa oo uu asaasigeeda lahaa Cabdilaahi Qarshe Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye qorshaha lagu jiray in la aasaaso ayaa waxa ayna la wadaagayaa Maxamed Axmed Kuluc oo Ilaahay u naxariistay dhawaan ku geeriyooday magaalada Hargeysa niman aan saaxiibanahay isxignaa ayaa guday ismaaciil saxaabin ka leeyahay ismaaciil saxaabin agaf ayaa helay ismaaciil baa Allah waa ku doonay inaad sabada jeclaay wardiyo ina keen maanta israacin waan israacada iigeeya Cabdilaahi Qarshe iyo gurmo wada fadhiya Cabdilaahi Qarshe waa nin aad baan u jeclaahay waan tagay wallahi qaad kama cuno sigaar kama cabo أحرى ولا إيه أنا كاير أحرى ولا صار إيه مركز معوش عباس كاي عوض إيه مركز غير ماي هذا مركز سو عبد الله قرشي عبد الله محمد هذا كم إيه محمد كان كيف قالوا تدي وين يجيب لي هيش تشري يا ولا هاس كان ريدم كي إيه تانا على تدي وآخر زي ما له ما كان مرة هيش أيوة عبد الله قرشي الله يكون عارف أيوة قلنا كساو شو هسوي هذا ما تيجي كده صحيح هاي ولا هذا ما عقد كاسة هذا شو هذا المسك يقدر يعني كان ما كويس تقولي وكمان جيبوا صدوقة ما يبغى وبارك كافرين والله فونا ما درك كل إذا عدبوا يا نفرد الأطفال في أركبوا يعني كيف كابلي وعلى هذا حلو حافظ يبوا يعني ولا ما أعرف إسماعيل بروح له كان يلقى شيء ذي وهذا يبغى هاي أوك هلا أنا يبغى الدوري إلى السبعين كوح عمر ولا على الواد شو ما كوف عليه واد شو يا فكرت كيف هذا بدأ شيء wuxuu Cabdilaahi Qarshe Ilaahay u naxariistay in badan ku sugnaa dalka Kenya waana ta suurta gelisay inuu aqoon u yeesho barasaabkii Kamakama iskugu ayay labaduba yimaadeen Somaliland saasi darteed ayaa 1948 uu Cabdilaahi Qarshe tiriyay heestiisii ka kacay Kamakama yimidee ka kacay Kamakama yimidee ka kacay Kamakama yimidee ka kacay xubnaha loo tiriyo inay kamid ahaayeen kooxdii ugu horeysay ee walaalaha Hargeysa ayaa waxaa kamid ah Cabdilaahi Qarshe Xuseen Aw Farax Shamis Abakor oo ku magac dheer Guduudo Carwo Maxamed Saciid oo ku magac dheer Guroon Jire Cismaan Beenaale Maxamed Nahari Maxamed Axmed Kuluc dhammaantood inta dhimatay Ilaahay ha u naxariisto inta noolna Ilaahay ha ugu deeqo caafimaad qab iyo cimri cibaado ku laadhane sidoo kale ayaa farmanaanta ay la soo noqdeen wafdiyadii loo diray London ee ku socday magaca NUF ta keentay iba furkii ama curitaankii maansooyin hor leh oo halgameede maansooyinkaasi waxaa aad loo xusaa kuwii uu tiriyay abwaankii weynaa ee Cabdilaahi Qarshe Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye hase yeeshee waxaa xilligan lagu doogsaday hanaqaadka qaabka maanso ee lagu suntay heelada xornimadoonkii ayaa isaguna helay dhimbiishii hurisay dadkii ayaa isla dhex qaaday maansooyinkii ee dadka ku dhiiri gelinayay in la halgamo oo jiifka laga kaco waxaana kamid ahaa heelada ku caanamaashay magaca Jawhariyalulah oo ereyadeeda ay kamid ahaayeen ileen jaahil jiniyo xoog ma laho intaan jiifay wax ma lay jarayo jabayo jilbis jeebka la ii geliyo jidhkaygii iskelay jidhiidhacadii jid boodayo dood jid dheer u maro jirdahan magansaday ima ay jalino afkay iga soo jufeeyeen Jawhariyalulah jidhka igu yaalay alla ma joogay jeexdhan bay maqanay kooxihii abwaanada ayaa helay fursad ay halganka ku hagaan gumaysigii Ingiriiskana lagu maran habaabiyo iyagoo oo suugaantooda ku saleeyay qaabka sarbeebta sidaasi darteed ayaa abwaan Xuseen Aw Farax Ilaahay u naxariistay gugii 1956 uu tiriyay maansadii ahayd wiilo iyo warsame dadkii Soomaaliyeed way fahmeen in uu wiilo ula jeedo dhulka warsamena gumaysiga mayse u cadayn maamulkii gumaysiga arintaasi waxaanu yiri wiiloy waxaan ahay wadaad luglo wiiloy walinimo ku soo degay oo wiiloy adna weer cad soo xidho
waxaa xilligan dalka Somaliland aad u yimid dad fara badan oo ka soo qaxay deegaanka imika ah kiilka shanaade aad baa loo soo dhaweeyay waxbarashadii waxaa looga dhigay bilaash dhaqaale xad dhaaf ahna waa loo ururiyay kooxdii fanaaniinta ayaa waxtarkaasi loo geysanayay waxay kaga qayb galeen ruwaayad lagu suntay ayaa ila galbiyay gumaysiga waana kan abwaan cali sugule oo arrintaasi iyo arrimo kaleba inooga waramaya Soomaaliya kuwa maqan reer Somaliland ahaa imika ah oo ay degaajiina oo madaxa oo boqorrade oo uqaale ayadoo Ingiriis iyo haysto mushaar loo qoro aqalada wareegay tabarucaad loo qoro la caawiyo la soo dhaweeyay ayaga bilaabaa oo kala baaqa Soomaaliya loo taaqay inay Soomaaliya haysa ayaga bilaabay inuu tiriyo ugu gargaartay la tusay doona wax walba marxaatiga taariikhiga ama anigu baan tiriyo ama qaybkeeda tiriyo maalintii wala soo martaba hiiliyo oo waxba leeyahay wada kala Soomaaliland والله كسو قحوي سومالي إثيوبيا أيها اللي هل عاوي تبرعات ذا الجولان كي كوفيا كي بليخي كي فلاشي كي هو المحبوكة فلا أنت نروح عليه يقول واحد هبل والضوء حتى العشاء أنت قوي الله ولي يقول بسكنا مركا روان أيه هوني وهذا سيدتك وحوالي هذا أيه يلقى الدير أيه أقول له أيه كرقارة أيه قرر أيه بمنبذ أيه يلقى الدير markii la kaleeyay suwaayada dadkooda uu wada qaaday ninka la yaab Cabdilaahi Qarshi ayaa ku dhiiray idaacadii oo Ingiriisku haysto ayuu intuu u yeeray nimadii maxaa ka mid ahaa live baan dariyaa live waxa weeyaan iyo record lagu qaban ee toos loo sii deeyay ayuu la ka qaado dadka dadkooda baa wada qaaday waa la qabatay nin ayaa xaqa laabi xigaa oo amdisha amasa ay ana qaawayay كيف أجيب له خطوة رقابي سوف عبر صوت القاهرة يجي يشوف أروح أكله ويقول شو بيجي مطبخ فيه أجل على بعض الجالي هديه في كوباني لما كان يهلان التيجان مركا على مين درابه وهذا هو البولاء وهاي وعلى أبويا لو هو كراسة قاسي يوم ما كلها هذا كله قولي وشوي كبره هدي أعرف ما يني لو ما كان وشذا ويشه واسكاكيتا hadii la garaaco godolma gambo iyo dumarka garaaca guntiga rag way geeyeen jiray gaarku ma wax gadantay oo cadadeedu way jirtay garaasiga weeyo oo galbatay aan gaadni ee loo gumay geeya aligiya gamaanki farda kugooda ay haw aan geeyni ee loo gumay kaashangaad xaqiisa lama gudbi كركي ودناهينا كلا go'an buuldago inaga gacmaha garaad isma daana gaalo bugeedna waa gudbooya buuldago inaga gacmaha walabtiina qeybtay oo ku gowracay gashigii diidan oo wax kaga gudbay gadaan gabaya gardaran ayaa guulaheen gargaara ayaa garanaayo gobonimadu ayay la gabiyeen guulay Axmed Qarshi waxa jiray Cabdilaahi Qarshi kaalmaynta qoomiyadda Soomaaliyeed waa habdhaqan wanaagsan oo lagu yaqaano bulshada reer Somaliland taariikhduna way dhigaysaa kana marxaati kacaysaa dadka fursadahaasi ka faa'iideystay iyagu si toos ah ama si dadbanba waxa kamid ah hadii aan ku bilaabo reer Dhagaxbuur Maxamed Cumar Jees Axmed Cumar Jees Maxamed Cumar Cismaan Siyaad Daawud oo lagu xasuusto kaalinta ku lahaa burburkii Hargeysa iyo xasuuqii dadka iyo reer Wardheer oo kamid ahaa bila rafle guuleede reer Qabri Daharana waxa kamid ahaa Cabdiraxmaan Afarjeeble iyo Cabdiwahaab Maxamed Xuseen intaasina dhageystayaal waxa ku qaybtii 23aad ee barnaamijkeena dharaarihii tilmaana waana diyaarintii baahda mareegta farshaxan iyo isku dabaridkii anigoo Cabdsalaan Ismaan Umar Sheekh Abu Hurayra tan iyo dhageystayaal intaan isku iimanayna barnaamijka kan xiga waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgeliyo iyo nooli kulantee wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh abwaanka weyn ee caanka ah abwaan aadan tarabi jaamac oo kamid ah rugcadaaga maansanyahanada Soomaaliyeed gaar ahaan Somaliland ayaa soo saaray maanso cusub oo
si sarbeeban uu ugu axadhay dhaliilo dhagistooda u baahan oo dhagaha bulshada baryahan daashaday abwaanka oo ka mid ahaa mansanyahanadii uu taliskii afweyne xabsiyada ka buuxiyey ayaa baal dahab ah kaga qoran halgankii hubaysnaa ee SNM. haddaba abwaanka oo in muddo ah gaabsanayay islamarkaana aan soo saarin wax sugaan cusuba ayaa haatan ooda ka soo qaaday maanso sida ka muuqata huwan micno ballaadhan oo aad u qoto dheer. maansadaasi oo abwaanku ula baxay isku hilan micnaha iyo ujeeddada ay maansadani xambaarsan tahay abwaanku ma u faahfaahin wuxuuna u dhaafay bulshada isagoo oo ina leh wixii idinka soo baxa waa idinkiyo garaadkiine. waxaanu abwaanku maansadiisaasi isku hilan ku bilaabay sida tane: in dhaweyd hogun mooyiye dibnaha hadal dhaafayoo hawada ii gelay ma jirin, hamrasho way igu badnayd, hubsiin oo iguma yarayn, samirna kama heesa rogan, baxnaanana kagama hadhin, hankaygana waxisma dhimin, hubkayguna waa ii dhan yahay. indhaha waan kala hayo, kor baan wuxu hedinayo, hoos baan wuxu eegaye, ujeeddadan hadafka badan habdhaco way muuqdaye, waxaan uga hoota dhigay hortaaday iman bishuye, adiga habeen wax saar halays aan lagaaga dhigan. markay hangallaysatee habeenana yeelatee welina heeda dawsan tahay inaan holladaa habboon. heegadaan u faashadaay dirirkii naaf buu hadhsaday, maran buu haybsadaa, hog cidhir buu saxalki galay. intaan haanta u ligaxay afartaa ma isku helay, halmaanaygama tagee hilinkeedii ma maray, hafarka coomaaddaha hurmada baasaanu geyin, samada la hehaabayow halkaad caga dhigan lahayd, hadhowta ku cuni lahayd, geeltoosiyo hangagaarayiyo haadka adag kuu qarsoon, warkeedana aanad hayn, galadhiyaa kaa horwaray. hanfade tukow hanfade, xuushadii way hambabartoo haddeer way toostaye, sidii hore ha ugu iman. hulufaaga yaacayee wishiiri haloosiyow, wiriiro habeesantiyo geedyeel heli maysidee, hantidu maahee tadcaar libaxyo hurdaa jiree, hunguriyo idiinla geli deridan halaaganee, dugaagga hor boodaysee iminka hororowdayey, wabarkii ma hawlga baax, hamsiyo hoos dhaban wax ma leh, higaadda miduun u daa, haatifka noo sheegayow miyay hoos dhaban tahay, ma hamsaa ma kordhaw, bal miduu wax noogu sheeg. hamsiyo hoos dhaban wax ma leh, higaadda miduun u daa, haatifka noo sheegayow, halkaan uga ceel qodiyo halkaad uga heesaysaa heblaay waa kala fogyiin. hoodada shaashawdayey ayaankii lagugu helay, hannaankii u sabab ahaa hangoolladii may dhammaan. intaan haanta u ligaxay afartaa ma isku helay, halmaanaygama tagee hilinkeedii ma maray, heegadaan mooday inay habeen hore biyo dhacdaay, humaaggii kugu ladhnaa habaas buusha uu ahaa, harraag baa kugu dib jiray. hillaaca beenoobayow horseed xumo aawadeed hayaan baa kugu lugo'ay, haleelada oolashaye siday u hiigmayeen hilibkeedii gurmaay, xaaniidkaagaa qallalay. horweynka isnuugayee gabaarayda heerinka ah takartu u heshiisayow, hadhuubkaagaa engegay. heetista dhicisayey hudhiyaa la qabadiliyey, waraabiya haadcunyey haldoorkeedeedyayey. hibada wadkeed galaay aduu haydaare iyo habeenba kuu dumiye, haybaddan korinayaay hooyadaa weli ma dhalan. nasiibka hallaabayow nabsi baan kaa hadhayn, hayinka fadhiistayow hoggaankaa kuugu wacan, jacaylka hungoobayow hangal baan kaaga xidhay, haldhaa quruxduu lahaa habeen qudha daadiyow, hadhowtaad baadidoon huqdeeda ku daalaysaa, saad u heshaase adag